wanaagsan daawadayaal dhegaystayaal idin ahaantiinba waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii ahaa aqoonkaal jimcihiisii saddexaad qaybtiisii saddexaad waxaad ku mahadsantihiin daawadashadiina dhegaysigiina iyo la wadaagiina aad la wadaagaysaan asxaabtiina intooda badan aniguna waxaan ahay walaalkiin caaqil yacqoob faysal aadan yacko yare haddaba barnaamijkan gudagalaynaa ee diyaar garow wacan su-aasha 28aad sheeg suuradaha qur-aanka ee ka bilowda nebiyo jawaabtu waa 6 suuradood su-aasha 29aad sheeg aayadda ugu xukunsan qur-aanka amaba ugu xukunka dheer jawaabtu waa إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سؤال صدنات شيخ سندكي أي صدقتي سورة التوبة جوابت وحي صدقتي سندكي سقالات هجرية سؤال صدني كوات شيخ سورة كلية لغو الشيخ لو بسين jawaabtu waa suuratu namli su-aasha 32aad sheeg suuradda lagu sheegay tixsi jawaabtu waa suuratu xaj su-aasha 33aad sheeg suuradda ugu dheer qur-aanka jawaabtu waa suuratu baqara su-aasha 34aad sheeg suuradda lagu fadeexeeyey yahuudii reer bani nadiir jawaabtu waa suuratu alxashri su-aasha 35aad sheeg suuradda u dhigmata 3 marka loo qeybiyo qur-aanka jawaabtu waa suuratu ikhlaas su-aasha 36aad sheeg magaca kale ee loo yaqaano suuratu faatixa jawaabtu waa 7 mathani su-aasha 37aad sheeg magaca kale ee loo yaqaano suuratu arraxmaan jawaabtu waa caruusul qur-aan su-aasha 38aad sheeg suuradda u ah wadnaha qur-aanka jawaabtu waa suuratu yaasiin su-aasha 39aad sheeg suuradda aan lagu bilaabin bisin jawaabtu waa suuratu tawba su-aasha 40aad sheeg imise jus ayuu ka kooban yahay qur-aanka jawaabtu waa 30 jus su-aasha 41aad sheeg imise maqor ayuu ka kooban yahay qur-aanka jawaabtu waa 240 maqrood su-aasha 42aad sheeg imise xisib ayuu ka kooban yahay qur-aanka jawaabtu waa 60 xisib su-aasha 43aad sheeg imise sano ayuu soo degayay qur-aanka jawaabtu waa 23 sano su-aasha 44aad sheeg imise suuradood ayuu ka kooban yahay qur-aanka jawaabtu waa 114 suuradood su-aasha 45aad sheeg suuradda keliya ee soo degtay iyadoo dhammaystiran jawaabtu suuratu ancaam su-aasha 46aad sheeg suuraddii ugu horeysay ee soo degtay qur-aanka jawaabtu waa suuratu iqra su-aasha 47aad sheeg imise kelimadood ayuu ka kooban yahay qur-aanka jawaabtu waa 77,934 kelimadood su-aasha 48aad sheeg imise xaraf ayuu ka kooban yahay qur-aanka jawaabtu waa 32,300 jawaabtu waa 323,670 xaraf su-aasha 49aad sheeg imise jeer ayaa qur-aanka lagu sheegay kelimada aljaahiliya jawaabtu waa 4 jeer wabilaahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh